galab wanaagsan mudanayaal iyo marwooyin marka hore waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka shirkan muhiimka ah ee aan uga hadlayno arrimaha gurmadka abaaraha aadka u daran ee dalkeena ka jira anigoo idinkaga mahadcelinaya taageerada joogtada ah ee aad la garab taagan tihiin dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan maanta halkan idinkugu casuumay in aan idinla wadaago xaaladda abaareed ee ka sii daraysa ee ka jirta gobollada Soomaaliyeed oo dhan taas oo u baahan gurmad iyo tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo dalka waxaa ka jira abaartii ugu baaneed ee soo marta wixii ka dambeeyay macluushii 2011kii saddex xilli roobaad oo isxiga ayaa baaqday taas oo ay keentay in ay xoolihii iyo beerihiiba ay ba'aan waxay abaartu saameysay ku dhawaad 6.9 milyan oo qof in ka badan 9.5 milyan oo xoolo ah in ka badan 2.6 milyan oo qof wajahaya biyo la'aan aad u daran ku dhawaad nus milyan qof ayaa maalmihii la soo dhaafay abaartan darteed u barakacay deegaano ka mid ah Galmudug Koonfur Galbeed iyo Jubbaland dadku waxaa ka dhamaaday xoolihii beerihiina warkooda daayay waxaa si weyn u yaraaday biyihii ceelasha waxaana deegaanada qaarkood laga soo warinayaa dad u dhintay biyo la'aan iyo oon ba'an haddii ay xaaladdu sidaa ku sii socotana waxaa hubaal ah in ay u xubsiiban doonto macluul galaafata nolosha dad badan oo Soomaaliyeed xukuumadda waxa ay dhammaadkii sanadkii tagay ku dhawaaqday in dalku ku jiro xaalad bini'aadanimo oo degdeg ah waxaana ka codsanay caalamka in ay u soo gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ee abaarta la daalaa dhacaya waxaan abuurnay guddi gurmad qaran oo qayb ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana qabanay shirweyne qaran oo gurmadka abaaraha ku saabsan oo ka dhacay isla goobtan baaqideennii gargaar dalabka ahaa waxa iyagoo mahadsan ka soo jawaabay dalal iyo hay'ado kala duwan oo soo diray gargaar aan u sii gudbinay deegaano ugu daran dalka ee abaartu ka jirto mahad gaar ah ayaan u jeedinayaa dalalka iyo hay'adaha ilaa hadda gurmad nala soo gaaray waxaan cadaynayaa in baaxadda abaarta iyo baahida jirtaahi ay aad uga weyn tahay intana soo gaartay iyo itaalka dawladda federaalka Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan mar kale idinka codsanayaa in aad degdeg uga soo gurmataan dadka Soomaaliyeed ee abaartu hayso si looga hortago macluul keenta geeri wadareed iyo xaaladda bini'aadanimada oo ay adag tahay in wax laga qabto waxaan codsanayaa dhaqaaq iyo gurmad degdeg ah oo hadda ah dib u dhac kasta oo nagu yimaado gurmadka uu shacabku u baahan yahay wuxuu sababayaa dhimasho dad badan oo maanta la badbaadin karo mudanayaal iyo marwooyin anigoo mar kale idinkaga mahadcelinaya taageeradiina ayaan mar kale idinkaga codsanayaa in aad nagu garab siisaan gurmadka dadkeena ee wajahaya abaarta aad u daran sidoo kale insha Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu naga dulqaado abaartan daran waana mahadsantiin